Soo dhawaada, aniga magacaygu waa Cumar. Waxaan halkaa u joogaa inaan kaga sheekeeyo sheekadayda. Aan u noqon dib. Waxaan ahaa mid ka dhashay reer qani ah. Waxay ahaayeen kuwo faraxsan. Hooyaday iyo aabbahay ayaa aad isugu faraxsanaa. Anigoo kama hari jirin hooyaday, waana daba socon jiray mar walba. Aabbahay iyo hooyadayna ayaga aad ayay isku jeclaayeen. Mana jirin wax ka fiican oo aan haystay waqtigaas, ilaa laga gaaro maalin maalmaha ka mid ah. Markii aan gaaray 8 sano ayaa waxaa dhimatay hooyaday. Wuxuu ahaa warkii ugu xumaa adduunkeena. Waan aqbali waayay inay hooyaday dhimatay. Oohinta mar walba ayaan oon jiray waxay noqotay mid ila saaxiib ah. Waxaa naga darnaa aabbahay oo asaga aqbali waayay warkaas. Waxa uuna aadi jiray mar walba qabrigeeda. Waxa uu ka go'ay dunida oo dhan ilaa uu ka noqday mid caba qamriga. Markii dambena waxa uu bilaabay inuu qamriga aad u cabo. Kadib shaqadiisa ayuu waayay. Waxa aan ugu dhacday shaqo la'aan. Waxa uu kasban jiray lacag aad u yar, lacagtana waxa uu ku bixin jiray qamriga. Sida uu ku sii socday aabbahay waxa uu cabi jiray mar walba qamriga. Waxa uuna ahaa mid aad u xanaaqsan. Walaalkay ayaa aniga isoo koriyay oo na qaatay booska aabbahay. Waxa uu ahaa mid wax walba i baro. Sanadada saas ayay ku sii socdeen. Aabbahayna waxa uu ahaa mid walba markii qamriga cabo. Ilaa walaalkay maalin maalmaha ka mid ah oo hortiisa ugu cadeeyay uuna ku dhahay gurigan ama waa ka tegaynaa ama qamriga ayaad iska daynaysaa. Lama filaan aabbahay waa uu aqbalay. Waxa uuna ka cudur daartay walaalkay. Muu rabin in uu na waayo annaga sidii uu waayay hooyadii oo kale. Walaalkay waxa uu helay shaqo. Waxa ay ahayd shaqadaas meel aad u fiican. Waxa uuna heli jiray mushaar aad u badan. Rajo cusub ayaa anaga noo bilaabatay. Farxadiina waa ay noo soo noqotay. Ilaa maalin maalmaha ka mid ah oo aabbahay noo keeno 3 tigidh oo lagu soo daawanayo garoonka ciyaaraha. Aad ayaan u faraxnay. Waxaana soo aadnay dhanka garoonka. Aad ayaan u faraxsanayn. Aniga waan boodboodayay. Anigoo ku faraxsan inaan soo daawan doono. Markii ay ciyaarta bilaabatay iyadoo ciyaarta dhexda marayso ayaa aabbahay hal mar anaga naga kacay. Waxa uuna aaday saaxiibadii. Waxa uu nagu dhahay waxaan iskula kulmi doonaa bannaanka meesha baakimada. Kadib markii ciyaarta dhamaatay ayaan meesha baakinka imaanay aniga asaga. Waxaan sugaynay aabbahay muu imaanin. Waa cabaar ayaan sugaynay ilaa uu ka imaaday markii dambe asagoo saqraansan. Markii uu saqraansan uu arkay walaalkay ayaa waxa uu bilaabay inuu canaanto. Waxa uuna dhahay ma waxaad soo cabtay qamrigii. Waxaan ku dhahay ficilkan iska daa mana iska daynaysid. Namana danaynaysid anaga. Wuxuu ka qaaday furaha waxa uuna dhahay aniga ayaa wadi doona gaariga ii dhiib. Wuxuu geliyay gaariga waayo asaga ma uu socon karin waayo wuu saqraansanaa. Kadib aabbahay waxa uu bilaabay qamriga inuu ka tambadiyo. Waxa uuna keenay inuu walaalkay bahdilo oo na ku qayliyo. Kadib waa ay isdagaaleen. Aniga waxaan bilaabay inaan dhagaha iyo indhahaba isku qabsado. Waayo ma rabin inaan maqlo hadalkooda. Ilaa aan ka maqlay gaarigeena oo gaari kale ku dhacay. Kadib waxaan beelay miirkaygii. Saacado kadib ayaan indhaha soo kala qaaday. Markii aan soo kacay ayaan waxaan arkay walaalkay oo hor joogo. Gacantiisana waa ay jabsaneyd. Markuu i arkay ayuu dhahay alxamdulillaah haddii aad soo kacday. Aad ayaan u faraxsanahay aniga. Kadib waxaan dhahay gacantaada way jaban tahay. Uma joodid miyaa? Waxa uu igu dhahay dhib ma laha. 2 isbuuc kadib way fiicnaanaysaa. Waxaa fiican inaad adiga soo kacday. Kadib waxaan weydiiyay aabbahay waxa uuna i dhahay waxa uu ku jiraa qolka kale. Aad ayuuna u fiican yahay asaga. Laakiin booliiska ayaa i weydiiyeen. Waxaana ku dhahay gaariga asaga ayaa waday. Taas ayaana noo fiican ee adiga waxaad dhahdaa waxaad igu waafaqdaa inuu asaga waday. Waxaa laga yaabaa inay ku qasbaan inay qamriga iska daayo. Fikirkaas aniga fikir fiican ayaan u arkayay. Waxaana ku dhahay waan kula garab joogaa mar haddii uu iska dayn doono qamriga. Waayo waxaan soo xasuustay dagaalkii ka dhex dhacayay gaariga dhexdiisa. Waxa uu dhahay waa tamaam haddii aad isku waafaqnay. Caawa waan seexan doonaa balse waxaan ka bixi doonaa isbitaalka beri subax. Habeenkii markii la seexday ayaa aniga waxa iga imaan waayay hurdadii. Kadib waxaan u baahday biyo. Waxaan soo aaday bannaanka. Markii aan soo marayay meelaha dhexdooda ayaan waxaan ka baqay. Waayo waxa ay ahayd meel cidlo ah. Ilaa aan ka arkay gabar ooynaysa. Markii aan arkay gabadha ooynaysa ayaan xaggeeda soo aaday. Waxaana weydiiyay waxa ay la ooynayso. Waxa ay ii sheegtay in aabaheed uu maray gaari. Waxaan dhahay isdaji. Aabaha aaway. Waxa ay igu tilmaamtay aabaheed inuu ku jiro qolka ay agtiisa taagan tahay. Kadib qolka ayaan fiiriyay. Mise waxaan arkay nin meel jiifa oo waxa ag joogay nin booliis ah. Wuxuuna u sheegay islaantiisa in uu qabtay ninkii gaariga barbarsiiyay. Wuxuuna ahaa nin saqraansan. Waxa uu ku jiraa ayuu dhahay hadda isbitaalka. Markii la daaweeyo ayaa xabsiga la geyn doonaa. Nagamana badbaadi doona ciqaabtiisa uu heli doonaa.
Kadib ayaan fahmay waxa uu damacsanaa walaalkay. Markii aan u soo orday dhankiisa ayaan u imaaday asaga oo hurdo. Waxaana ku dhuftay dharbaaxo. Waxaana ku dhahay kac, iskumaana ogeyn inaad khiyaanto. Waxaan arkay gaari iskumaanan dhicin ee waxaad ku dhacday nin. Waxaana rabtaa inaad aabbahay xirto beddelkaaga adiga. Waxa uu dhahay yaa kuu fiican adiga fikir. Haddii aniga la i xiray yaa ku daryeeli doono. Aabbahay sidiisii hore ayuu khamri cabi doonaa. Adigana waxaad ku soo dhici doontaa bannaanka. Wax cunto ku siin doonana ma jiro. Waxay hor taallay inaan kala doorto walaalkay xiritaankiisa iyo aabbahay. Waxaanan ahaa aniga kaliya midka markhaatiga u ah. Waxaana doortay in walaalkay la xiro. Markii aan arkay gabadhii oohinteeda, waan soo orday. Markii aan soo aaday ayaan arkay askarta oo sii xiraya aabbahay. Waan ka soo daba orday. Markii aan imaaday inaan joojiyo ayuu aabbahay waxa uu dhahay aamus. Kadib aabbahay waxa uu ku joostay askartii waxa uuna ku dhahay ma i siin kartaan waqti aan kula hadlo wiilkayga, waayo waxaan rabaa inaan macsalaameeyo. Cabaar markii ay fikreen ayay oggolaadeen waxayna dhaheen soo dhaqso. Kadib aabbahay ayaa aniga ila hadlay waxa uuna i dhahay waa inaad aamustaa waxaadna iska hilmaamtaa wixii dhacay. Askartana waxaad u sheegtaa inaan aniga ahaa midka gaariga wadayay. Waxaan dhahay laakiin aabba laguma xiri karo adiga dembi ma lihid. Waxa uu dhahay waan istaahilaa wiilkayga waayo waxaa laga yaabaa inaan khamriga ka tagay intaas. Waayo waxaan ballan ka qaaday hooyada inaan kulligeen in wada ilaalin doono. Walaalka ayaa ku ilaalin doona ee u tag asaga. Waxa uu dhahay wiilkayga ha hilmaamin waan kuu imaan doonaa. Iskana dhig wiil aad u adag. Waxay sii wadeen askarta walaalkay aabbahay anigana meesha ayaan taagnaa. Waxaan isku harnay aniga iyo walaalkay. Kadib ayaan meesha fadhiistay waxaana bilaabay inaan ooyo. Waxaan ogaaday aabbahay shakhsiyadiisa aadka u fiicneyd. Waxa uu ka doorbiday noloshiisa iyo xorriyadiisa anaga nolosheena. Kadib waxaa dhacay xukunkii. Waxaana aabbahay lagu xukumay sanad maadaama uu soo kacay ninkii uu u xirnaa asaga. Waxaana loo khafiifiyey xukunka waayo waxaa dhacay inuu dhimanin ninkii aad ayaan aniga u faraxsanayn. Kadib waxaan ku farxay inay gabadhaas noqonaynin agoon sida aniga aan u ahayn rajo. Waayo rajanimada aad ayay u xun tahay. Walaalkay waxa uu ahaa mid aad u murugaysan. Shaqada ayuuna isku soo daarin jiray si uu u hilmaamo wuxuu ku fikirayo. Aabbahay xabsiga ayuu ku xirnaa. Mana filaynin inaan noqon doono qoys faraxsan waayo waxaan u xisnay asaga. Kadib anaga isbuuc walba waxaan ku booqan jirnay aabbahay isbitaalka.